qaar ka mid ah dhalinyarada mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa waxay sheegeen in gebi ahaanba ka baxeen xisbiga kulmiye kuwaasi oo sheegay inay ku biireen xisbiga wadani. dhalinyarada iyo aqoon-yahanka kala duwan ayaa waxaa xisbiga wadani maanta ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Awdal oo horkacayo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Awdal ayaa sidoo kale dhalinyarada iyo aqoon-yahanka kala duwan waxay daadifeeyeen suldaan dhawaan lagu shaaciyay magaalada Boorama. waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradan qiimaha iyo qaayaha badan ee hareerahayga taagan. mar kale waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga iyo garabka dhalinyarada xisbiga sida milgaaya maamuuska leh nogala soo qayb galay madashan. waxaan maanta si milgaaya maamuus lagu soo dhaweynayaa xisbiga wadani dhalinyarada beelweynta guud ahaan Jibriil Yunis gaar ahaan reer Axmed oo maanta si rasmi ah uga soo baxay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga wadani. qodobka marka labaad waxaanu halkan si adag uga cambaaranaynaa kana soo horjeednaa faragelinta qaawan xisbiga kulmiye ku hayo sandalada soo jireenka ee beesha Makaayil. waxaanan halkan ka cadeynaynaa inaan u aqoonsanahay suldaanka guud ee beelweynta Makaayil Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil. waxaan halkan uga digaynaa fariin u diraynaa xisbiga kulmiye oo leenahay ka waantooba faragelinta aad ku haysaan sandalada guud ee beelweynta Makaayil. sidoo kale farxadida dareen gooniye tahay xisbiga wadani ku soo dhaweeyo hal maalin hadal kuma jireen inaan xisbiga wadani ku soo dhaweeyo dhalinyarada beelweynta Jibriil Yunis anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada beesha Axmed Yunis ee Talwadaag. waxaan maanta halka ku soo dhaweynayaa dhalinyarada beesha Axmed Yunis ee Talwadaag oo xisbiga kulmiye ka soo baxday iyadoo waxa weeyaan sida dhamaan lagu wada og yahay dadkoo dhan insha Allah maxay hadaan ay raali ka yihiin in xisbiga wadani la shaqeeyaan ay garab joogsadaan mar walba ay heegan u yihiin ay hadee jeer ay ag joogaan. sida darteed maanta waa qaybtii labaad weeyaan ee Talwadaag dhalinyarta waxaanu ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani oo waxa weeyaan gacmo furan u haya oo dimuqraadiya xisbi wanaaga oo horumarka maanta Soomaaliland rajeynaya ay ka mid yahay. marka sida darteed haddaan nahay dhammaan dhalinyarada Jibriil Yunis iyo waxa weeyaan Talwadaag ee beesha Axmed Yunis inaanu ka tirsanahay xisbiga wadani. intaana insha Allah waxaan kaloo ku yara darayaa saa uu sheegay walaalkay Cabdiwahaab suldaanka Makaayil annagu waxaan u garanaynaa oo nu ognahay Suldaan Saleebaan inuu yahay suldaan kale oo nu ognahay ma jirto haddaan nahay dhalinyarada beesha Jibriil Yunis. saasana nagu ogayaa annagu waxaan nahay dhalinyarada beesha Jibriil Yunis oo maantana ku soo biirtay xisbiga wadani. maanta waxaan ku soo biirnay xisbiga waxaan ka soo baxnay xisbiga kulmiye waxaan ka soo biirnay xisbiga wadani. waxaan nahay beesha Jibriil Yunis reer Axmed oo ka soo baxnay xisbiga kulmiye kuna soo biirnay xisbiga balaaranaya wadani. waxaan intaasi dhalinyarada garabka reer Awdal oo tiimkii labaad ayaanu nahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. halkan waxaanu ka salaamayaa dhalinyarada beelaha weyn Jibriil Yunis oo halkan ku soo biiray xisbiga wadani. maanta oo ay tahay bisha Ramadaan 4 ay tahay waxaanu halkan hambalyeeynaa kuna soo dhaweynaynaa dhalinyarada Jibriil Yunis annagoo inkastoo ka wada qoobanahay Jibriil Yunis oo dhan oo Axmed oo kaliya una lahayn waxaan leenahay ku soo dhawaada xisbiga wadani. aan waa salaamay bulshooyinka reer Awdal gaar ahaan dhalinyarada reer Boorama ee beelaha Jibriil Yunis agagaarkayga taagan. waan soo dhaweynayaa anagoo ka soo baxnay xisbiga kulmiye kuna soo biirnay xisbiga wadani. insha Allah waxaan rajaynayaa dadaalka inuu meel sare gaaro. waa kaas gaar ahaan anagu waxaan nahay dhalinyarada beesha Jibriil Yunis. waxaan nahay urur dhisan oo ka kooban gudoomiye iyo qaab macnihii uu ka dhisan yahay xoghaye afayeen. marka maanta mar labaad waxa dhalinyarada garabkayga joogay ku soo biireen kana soo baxeen xisbiga kulmiye waxayna ku soo biireen wadani. marka waxaan aad u soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiyaha wadani ama madaxa wadani iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad noo soo dhaweeyay. maanta waxaan si mug iyo miisaan leh u soo dhaweynaynaa dhalinyarada Talwadaag iyo guud ahaan dhalinyarada Jibriil Yunis oo si ballaaran oo milgalo uga soo biiray xisbiga wadani. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta dareenkayga lama soo koobi karo. waxaan oo dhalinyara oo xisbigii ballaadhnaa xisbigii rajada xisbiga wadani ku soo biiraya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. hawsha ballaaran oo qabtayna waxaan uga mahadnaqayaa walaalkay Cabdiwahaab. waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay dadaalkaaga halkaa ka sii wad. dhalinyarada iyaguna waxaan leeyahay insha Allah biidmillaah waan isbaran doonaa inta ninka ballaaran kulana yeelan doonaa waynu wada shaqayn doonaa. muhiimadda iyo waxa weeyaan go'aankeenu wuxuu yahay inaynu ka tirtirno xisbiga kulmiye gobolka
oo aan aqlabiyadda iyo codkeenna iyo cududeennaba ugu deeqno xisbiga waddani. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa mar labaad dhalinyarta ballaadhan ee cududda ah ee xoogga iyo firfircoonidaba la soo geli doona insha allahu tacaala xisbiga waddani. dhalinyarta waan soo dhaweynayaa si mug iyo miisaan leh ayaan xisbigeenni ugu soo dhaweynayaa. xisbiga waa xisbigeennii, waxaan idinka sugayaa insha allahu tacaala shaqo iyo inaad isbeddelka qayb ka noqotaan. waddanka waynu ognahay halkuu gaadhsiiyey sistamka maanta jiraayey. waxaad garateen inaad isbeddelka iyo rajada shacabka halka maanta ay marayso aad xisbiga ay ku jirto inaad taageertaan ood cududiinna iyo xooggiinnaba iskugu geysaan ayaad run ahaantii garateen. waan idinku hambalyaynayaa mar haddii aad idinka oo soo gartay oonan cidina idinka ololayn aad tiraadeen isbeddelku maanta halku yaallo ayaynu wada taageeraynaa, gamcahaas qabsanayna dhammaantiin. weliba anigu khaasatan idinka waxaan isku nahay isku deegaan baynu nahay, dhagax joog baynu wada nahay. insha allahu tacaala galbeedka iyo iyaanu ka wada maxaan ku xoojin doonaa haddii la yidhaahdo xisbiga waddani. garabkayga inaad noqotiin insha allah waan ku faraxsanahay. inaad isbeddelka waddanka qayb ka noqotiin waan ku faraxsanahay. kolley waddankeenu maanta halkuu socdo waad u jeedaan, rag aqoon labaa tihiin, rag wax garanayaa tihiin. rajadii shacabka maanta waxay sugaysaa xisbigaasi waddani inuu somalilan oo gamcaha is haysata insha allahu tacaala oo wadajirkeeda ilaashanaysa inaan mustaqbalka arki doonno. waxaynu dhisaynaa madaxda sharafta leh iyaynu dhisi doonnaa. doorashadiina waa inoo 13 November 2024 inta ka horeysana waynu diyaargaloobaynaa. litarka shidaalkii maanta halku marayo waad la socotiin walaalayaal. magaalada Boorama wuxuu marayaa 10,000, tuulooyinkana 12,000 buu marayaa. marka shacabka noloshiisa cid ka talinaysa kulmiye kuma ogin. waxaynu tashanaynaa lafaheenna iyo nafteenna iyo mustaqbalkeenna. aad iyo aad noo mahadsantihiin.